kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa Wacaal Tube. Fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato janaalkan subscribe saar oo furo gambaleelka si ay kugu soo gaaraan warbixinadii ugu dambeeyay ee halkaasi soo gelino. Maantana waxaan isla eegi doonaa sheekada wiilkan lagu magacaabo Sanjao. Sanjao waa wiil dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Shiinaha, waxa uu ku nool yahay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Sida muuqaalkiisa idinkaga muuqataba, maqaarkiisa waxaa ka muuqda isbedel weyn oo waxa uu la nool yahay xanuun gabi ahaanba saameeyay jirkiisa oo waxaa hadda halays u ah gabi ahaanba maqaarkaygii wuu geeriyooday. Dhakhtarkiisa ayaa la daalaa dhacaya sidii uu xal uga gaari lahaa dhibta haysata Sanjao. Marka uu booqdo goobaha dadku isugu yimaadaan ama lagu caweeyo, waxa uu dareemaa ka duwanaansho dadka kale, taasoo uu aaminsan yahay inay sabab u tahay in uu cudurkan jirkiisa ku sii faafayo. Laakiin Sanjao markan waxa uu helay akhbaar wanaagsan oo dhakhtarkiisa ayaa la wadaagay in la helay cudurka haya nooca uu yahay, iyadoona lagu wargeliyay inuu hayo cudurka loo yaqaano ichthyosis oo 22 sano kadib waxaa soo ifbaxay ifafaalo muujinaya in uu ka dawoobayo cudurka daashaday. Sheekadii Sanjao iyo noloshiisa cudurka maqaar ololka intaasi ayaan ku soo koobaynaa. Fadlan subscribe saar channelka Wacaal Tube oo furo gambaleelka si ay kugu soo gaaraan warbixinadeennii ugu dambeeyay.